السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شافان برو كدايسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي أد فرحسن تهاي أني جاب سيدو كله. هدي أد كل سو كرداي أرينا حدي له وحن كفرايا لبا مسألة كواد وإن أد إزدجسو فشتي أما مرك وهريسو أو أد قلبي قاعد سيسو الله عجائب oo aad tiraado waxa ii timid qadar ilaahay oo adiga ayaan kugu xamdinayaa kugu shukrinayaa qadartan adiga ayaa ii qoray ee rabbiyow mar kale qalbigayga dhaawac uu gaarin dheh hadii aad tahay hooyo dhiban hadii aad tahay aaba dhiban waayo waxaad weysay nuurka indhahaada waxaad weysay qalbigaada dareenkiisa waxaad weysay kuwaad caloosha ku qaaday ajaa'ib waxa weysay farxadii hadalkii qosolkii gurigii qurxoona ayaa isla markii isbedelay oo wuxuu isku bedelay halkan madowga oo kale ajaa'ib anagu maxaa rabnaa marka ujeedka aan rabno maxay tahay in aan noqotid hooyo taalanti leh hooyo xigmad leh hooyo xanuunku uu hayo haddana wax ul xeerinayso oo xambaarsan karaamada hooyanimada dulqaadkana dugaashanayso samirna weydiisanaysa rabbiga subxaana qaadirka ah ajaa'ib ma sha Allah maxaa dhacay waad helaysaa ilmahaada bishaaro dhaho waad helaysaa ilmahaada waad helaysaa ma dhiman mana laga dhoofin dalka looma dhoofin isla dalka aad joogto ayay joogaan ee waxa jirta wax yar oo itixaam ma dulqaadan kartaa marwada Soomaaliyeed dabcan waa jawaabtaada waayo waa inaan ku faraa wanaaga sida aad saaxiibka ila tahay waa in aan kugu dhiirigeliyaa wanaaga qubada hooyanimada ajaa'ib fiiri hooyada heerka ay gaarsiisinta wallahi gacmahan ka dhididaya walow samar ay tood dadka qaar xatii ay inaan dhidida dareemayaan ma sha Allah marka maxaa dhacay yani ma jecli wallahi inay hooyo isdiibaysa ani waxa warka bataatan hooyo oo ay dadkii dayaceen waxa ku dayacay hadii dariskaada waxa ku dayacay ehelkaada waxa ku dayacay kuwa shala markaa fiyoobeed ee dhaqneed ee quruxda badneed garab ku siin jira ayaa ku dayacay see kugu dayaceen mantaqaana markay ku dayaceen mase kuu sheega sida lagugu dayacay waxaa lagugu dayacay in lagugu xariiriyo wadadii runta ahayd oo rabbiga subxaana qaadirka in lagu faro waayo haddii intii lagu yimid lagaa oysiiyey malahan gargaar ee waa lagu sii dhaawacaya gaawaha ee burska lagu la dhacaya laakiin hadii qofka ku dhow ama ehelkaada ha ahaado san ku sheegay ama dariskaada ama asxaabtaada ahaadaan ee quraanku saaran ee yaasiimada lagu aqriyo ee yani lagu quraan saaro ee ayad kursiga korkaada lagu aqriyo ee adiga lagu dhaho تسبيحدا ونقر وهل عرب كذا هكا مغنيسين سبحان الله الحمد لله الله أكبر فير مركز إلهي معرفة قلقل كوكابي إنايا قرآن كخوبات روح بدنو ليه محيطة أنا بقول قريسان أبو مركز الإسارة صوتان توصي صوتان يوتيوب كان طبعا بلا صوتان ماشان كوتشيرو markii meelihii kale aroosyadii aaladii kale snaapka oo walbacaanka aan ka aha culays iga soo wajahay ee isku dayeen dadka qaar aqliga saaxiib aan u ahayn inkay su'aalaha lagu dhaawacay ka soo cararay ciidan xagee ka dhigta halkan codkaada baafi ayaan yiri hadaba aaladu aan uga jiray dhinacan kale aan soo jalaa dhibaato ma jirto marka halkaas ay dadkayga wanaagsanaa iyaguna ila soo aadeen ma sha Allah marka runtii
walaashaydii haddii aad haysatay dad wanaagsan inay ku dayacaan ma ahayn kelmadda qaaligaana in korkaada lagu dayaco ma ahayn ee in korkaada lagu daboolo oo lagaaga dhiga qur-aanka rabbigayga wehel ayuu ahaa lagaaga dhiga xeendaab ayuu ahaa qofka markii qur-aan la saaro wuu qaboobaya Soomaali maqli jirin qofkan waa dhakhtar anagu dadka waxaan dhahnaa qofka ilaahay uu aqli garansiimay dadka kale walaalay dhakhtar ma laga soo daaha bal quraan la saar laba jid Allah u furay maya koow qofkan qadarta markay ku dhacdo quraan saarade quraanka waa birbiriye hadduu dhakhtar rabo wadadii ku furaya haddii sakaraatul mawt ku saarnaayo ilaahay u saqiraaya hooyada markii ilmaha laga qaatay lababa quraanku uu caafimaad u siinaa wuxuu siinayaa karti awood ad adeeg waxa ka dagaayo baalihi shaydaanka dhinaca oo weeraraya ilaanay marka oyso shaydaanka ku horinaya xumaantada shaydaanka ku horinaya ina isdisho kugu qasbaya ha hadda adiga waxa noqotay qof aan waxba ahayn ha sax adiga hadda waxa tahay dambiile shaydaanka ku dhahay ha adiga dadka dhan ayaa hadda kugu la yaabay see dadka u dhex joogay see dadka u dhex carre fiir calaamadaha shaydaanka gabdhaha oo duufsada qaarkood ayaan kala hadlaa wayna ogaan doonaan gruubada ay ku wada jiraan marka waxay leedahay dadka ma dhex galo abaay shaydaanka waa waxaas dadka wax ma ka biin waxna ma ku keeni karaan waxna ma ka qaadi karaan waxna ma ku kordhin karaan aniga kommentiyadayda baar arag inta wanaagsan arag adduunka sida liiga soo wada duceeyay dadkaas ayaa wax ii keeni lahaa hadday dad wax qaban karaan marka shaydaanka ayaa ku miciyay markaas shaqalka shaydaanka ku saaranay qofkan waa ka diday afka u dhuubay ama walaalay iga dhaaf saas ileeyihiin adiga ha u jabinay ha isdhiibin hooyo dheemanay ha isdhiibin never ever okay dadka ilmaha ka qaatay qudhigooda markaad liici weyso wallahi sida gabar dariskayga waa lagu bilada lagu siinaa waxa taa qof wanaagsan lagu leeyahay waxa tahay qofka ilmaheeda quality u leh haysan karo aan degdegaynin oo haysto qubada hooyanimada heblo qof adaga tahay ayaga ku dhahay wariga ma lagu soo degdegay ana ku dhahay ya ma fahantay laakiin saada martire wala yaaba wala ugu wiirsana may kulama jecli mana jecli waxa soo dhan in ay kugu dhacaan difaac ka ahaw qof darajo la noqo qof dadko dhan ay ku daysadaan noqo qof hankeeda sareeya noqo qof ilaahay ku xiran noqo ilaahay markasta adi tala saaro markasta Allah subhanahu wa ta'ala icaawi ilaahay wadiga dheh ilaahay uu ooy ilaahay wuxuu ku soo adeejinaa muslim iyo gaalo wallahi ilaahay wuxuu ku siinaa isteex qurux badan ilaahay wuxuu ku siinaa risaaqad aadan xisaabin karin markii hore midaad haysana hadda lagu siinaa ooda u walwalin oodan shaqaysan oodan raadinin waa lagu jeclaana waa lagu soo raadsanaa eheladaada ayaa gacanta saas kugu qabanaysa da eheladaada ay ku joogaan Yurub haddii aad ahay qof wanaagsan ee dariska ay jecel yihiin dariskaada ayaa rabbi ku soo caabidinaya ko dariskuna laba mas'alo waay dariska laftirkoodan ka hadlaya daris wanaagsan oo waxa jiro qofka ay jecel yihiin markuu jabka ku dhaco wallahi sideeda camal way duceeyaan masaajidada markay isku tagaan ay ugu duceeyaan dumar iyo hawo rag bale saastay tahay waxay ka dhowrayaan qalbigaada dhaawac way ku ilaalinayaan haddana markaa is aragtiin muxubo galgaceel ay kugu salaamayaan oo waxay ku leeyihiin ma rabno inaan biisi kaa dhigno walow ani aan ka afeefto oo teleefanada badan ma jeclin laga soo waco waayo hadalka oo maxay ahayto oo waxaan rabaa inaan iska baaro kartida oo ah inaan jilcin hadday qofkan war idhaho oo ka dhageysto qofkan kala war ku dhaho oo ka dhageysatid waa jilceysaa hadalkii runta ahaa ayaa ka leeceysaa kow talooyin badan wax ma ku taraan
markasta waa in leeyahay sharciga dadka yaqaano u daa dadka kula shaqeynaya ha noqdaan dad sharciga yaqaano waa ogaha in dhibaato badan ay nala soo darista annaga ilmaha markii nagala qaato oo macnaheeda u yahay ها ilmaha maxaa ku suubisay qof kasta ku dhahay laakiin adigu midda ka raaw xitaa waxa ma suubin iyo wax baan suubiyaa dhihin insha Allah way iimaanayaan dulqaad suubin hadii aad dibsatana waxa tiraahdaa haleega joojiyo su'aashaas dhan adiga laga rabaa talent ina yeelatid adiga laga rabaa qof jir ina noqotid salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa insha Allah